السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله قالقة وولاشين زهرة أحمد زهرة فاشون وال أمر لبات مر كلابا كسو لابتي هوذا waxaan haddana guda galeynaa maanta su'aalaheeni marka sidii qorsheena ahayba maalin waa su'aalo maalinna dadka ka soo jawaaba iyo magacyadooda iyo intii ku guuleysatay marka hadda waxaan guda galeynaa su'aalaheeni maanta sidaad caadaysteen bashan diin ah iyo shan maadi ah insha Allah waan la socotaana umarina cidii ku guuleysato iyo sidee abaalmarino u kala helayaan sidaan hore idinku sheegayba qofka youtuber ah oo aan shuruudaha buuxinin laakiin waxaan siinayaa ayaan iri laba boqol oo saacadood qofka kale oo subscribe rabana waa u sheegay 100 subscribe waxaa soo hartay qofka ka jawaaba 5 su'aalood oo ka mid ah su'aalaha waliba diiniga ah waxaan siinayaa 100 saacadood haddii uu 3 ka jawaabo diinigana waxaan siinayaa still 30 oo subscribe marka saasay ahayd qofkii aan ahayn labadaba ama youtuber ah oo shuruudaha buuxiyay oo aan dan ka lahayn saacada iyo subscribe ba wuxuu ugu leeyahay hadiyad nambarkeygana markasta waxaan soo dhigaa mid kastaba waxaan soo dhigaa hoos nambarkeygu soo waca saasaan ku wada xaajoonaa qofkii shacabna sidoo kale marka qofka shacabka iyo qofka shuruudaha buuxshayba luuqan ka wada hadlaynaa insha Allah iyo gabdhaha kale taa iyaga tirkooda oo aan guddoonsiinayo ama saacada ama subscribe marka haddii aan guda galo su'aalaheeni maanta shanta diiniga aan ka bilaabo ma sha Allah tabarakallah su'aasha koowaad waxa waaye saxaabiga ugu cimriga dheeraa asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaad sheegtaa saxaabigii ugu cimriga dheeraa asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa su'aasha koowaad okay su'aasha labaad waxaad sheegtaa albaabka dadka sooman ay ka gali doonaan jannada albaabka dadka sooman ay ka gali doonaan jannada waa su'aasha labaad okay su'aasha saddexaad haddaan u gudbo waxaad sheegtaa nabigii la dhihi jiray qaliiluraxmaan ayaad sheegaysaa yacni nabiyadu ka mid yahay calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa loo aqoon jiray ama loo yaqaanay qaliiluraxmaan okay su'aasha saddexaad ka xaq uga tagno su'aasha afraad waxaa sheegtaa halka lagu aasay rasuulka sallallahu alayhi wasallam halka lagu aasay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ayaa sheegaysaa su'aasha shanaad ee ugu dambaysa waxa waaye rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu geeriyooday caruurtiisa imise ayaa ka noolayd nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu geeriyooday caruurtiisa imise ayaa ka noolayd ama ka joogtay xilligaas shanta su'aal oo diiniga waxaan u maleynayaa inaad halkaas nooga eg tahay waxaan galeynaa maadiga okay midda koowaad ee maadiga waxa waaye sidee bay ku dhici kartaa in 8 maalmood oo aadan seexan in 8 maalmood aadan seexan adoo qof bini aadana micnaha sidaa doonto u faham kale jawaabtaan ka rabaa sidee bay ku dhici kartaa 8 maalmood isku xigta in aadan seexan ka jawaab su'aasha labaad maxaa loo yaqaanaa boqolkii neef oo ari ah maxaa loo yaqaanaa su'aasha labaad waxay noo ahayd soo maaha sorry ilmo yar iga soo dhex kala hadalka maxaa loo yaqaanaa boqolkii neef oo ari ah waa inaad sheegto waxa loo yaqaan boqolkii neef oo ari ah insha Allah su'aasha saddexaad waxa waaye nin ayaa waxa lagu leeyahay salaad dukanayay midaan si fiican ugu korgala nin ayaa salaad dukanayay for example ninka wuxuu dhanka midig markuu u salaamo naqsaday waxaa ka jabtay weysadii si fiican u dhuuxa nin ayaa dukanayay markuu dhanka midig u salaamo naqsaday waxaa ka jabtay weysadii markuu dhanka bidix u salaamo naqsadayna waxaa ka furantay xaaskiisii markuu hortiisa eegayna waxaa lagu yeeshay faral marka waxaan idinka rabaa jawaabta saddexda haddaan idinku celiyo nin ayaa salaad dukanayay dhanka midig markuu fiiriyay waxaa ka jabtay weysadii bidix markuu fiiriyayna naagtii ayaa ka furantay
hortiisa markuu eegayna faral ayaa lagu yeeshay soo waxaan idinka rabaa marka sababta insha Allah su-aasha xagga waxaan marayaa umaleynaa su-aasha saddexaad su-aasha afraad waxaa sheegtaa laf ka mid ah jirkaaga oo aan dhuux lahayn laf ka mid ah jirkaaga lafaha ku jiro haddana dhuux aan lahayn waxaan maraynaa su-aasha afraad soo maha okay su-aasha shanaad waxaad sheegtaa magac gabar waa magac gabdheed oo ka kooban 10 xarfood saddexda hore ama saddex ka mid ah waxay noqonayaan xoolo dhadig ah saddexda eray oo ka mid ah waxay noqonayaan xoolo dhadig ah afarta kalena waxay noqonayaan waxa dunida lagu kala qaato waana 7 xarfood waa magac gabdheed saddex ka mid waxay noqonayaan magac xoolo oo dhadig ah afarta kalena waxay noqonayaan wax la kala qaato bini'aadamka kala qaataan su'aalaheena meeshaas ay ku egyihiin walaalayga qaaliga ah insha Allah waxaan idin rajeynayaa guul iyo gobonimo kuwii hore intii kasoo jawaabtana waa is helnay kale qof walba iyo mudnaantiisu leeyahay kuwana waxaan idin rajeynayaa jawaabtiina insha Allah inaad ku guuleysataan insha Allah marka waxaan idin rajeynayaa khayr aan dhammaan jannatul firdaws ay noo balan ah qof walbana aniga iyo idinka waxaan idin kula dardaarmaa cabsida Ilaahay hadduu Ilaahay wada sala karaal noqdo waxaan rabaa inaan ka sii baxo waxaan idin xusuusinaa qof walba markuu su'aasha ka jawaabayo si iskugu xigto uga jawaaba qof wuxuu soo qabsanaa su'aasha shanaad waxaa la rabaa 1 tiksi ma aqaano ku qor 2 tiksi ka bood ama ikisaar 3 tiksi 4 daa taqaan 4 ka jawaab qof intuu ka jawaabo uu tan labaad ama tan saddexaad waxaan ka wadaa ta shanaad uu ka jawaabo uu qoraa tii koowaad uu hoos marsiinaa inkastoo wixii ka jawaabaya haddaan iska fahmo su-aasha koowaad markaad garato meel ku calaamayso buug ku diyaarso qalin qaado qoro markaad diyaarsato le jawaabta marka soo qor markaad diyaarsato xalada jawaabta su-aasha koowaad waa saas ama ma aqaano ku soo qori su-aasha labaad waa noocaas ama ma aqaano su-aasha saddexaad waa saas ama ma aqaano insha Allah afartan ee soo habeeya si aan u fahmo khayr ay idin rajeynaa walaalayga qaaliga ah mar kale iyo isku soo noqosho wacan idin ku cusub channelkayga subscribe idin hore ula socotayna share like and comment la isma faraya taas barakallahu fiikum aad ayaa u mahadsantihiin soo dhaweyntiina fiican dhiirigelintiina maasha Allah tabarakallah ilaahay ku jannada ku kulmaha naga dhigo maasha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu mac salaama waa inoo iyo mar kale isku soo noqosho wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له قالقة وولاشين زهرة أحمد زهرة فاشون وال أو مر لبات مر كلابا كسر لابتي هوذا وحن هدنا جذق لنا ما أنت سؤاله إني مركا سيد قرشينا هاي بمعني وسؤال